السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن وناكس صاحب يلقى بيهانتي بهالكن وبيج كفيسبوك محمد يوم بيجا عمل فرنكوس ورواد أصحاب وأنا عادي هنا أيام كلها يدن كفيسبوك أنتوا بدن ما يزفلين كلنا فيديو أركتيان صوري قدونه سبورتس كان أصحاب فربضان أو كوحي فالتنا أو إلا يمدوين سندوين وأن كوحي ريرنا فيسبوك أياجرو إن أصحابي سود وهذا كعمل فرنكوس ورواد بيج كوبيج كيني ما أنتنا واحد ربع سوبر سوندي إن أن هل إلا بأن كإرادو Super Sunday waxba la isku mareebanin horyaalada kala duwan waxaan ka bilaabinaa horyaalka ugu xiisaha badan ee Premier League-na ciyaartii ugu adkeyd waxay dhaxmartay Tottenham iyo Liverpool oo hadda soo dhamaatay ciyaartaasi oo mucaaradka iyo taageerayaasha kooxda Liverpool-ba wadnaha farta ay ku wada hayeen sababtoo ah Liverpool 3-3 laga daba keenay ciyaarto dhamaada seeriga afka lagu hayo ay goolkii afraad ay dhaliyeen sidaasna waxay ku noqotay ciyaarta 4-3 oo ay Liverpool guush ay ku raacday dad badanna maysan filanaynin in ciyaartaasi ku soo dhamaad doonto Manchester United iyadu xaaladeedu iska sidii bariga dhexe hal eberkeedii tacbaanka ah ay mar walba ku badinaysaa hal eberkaas ay kaga badisay Aston Villa Manchester City ayadana sidoo kale ciyaar aanan la jecleysan ay maanta soo bandhigtay oo qof walba Manchester City taageero uu lahaa mar uun ciyaarta ma inaga dhamaato oo wadnaha farta uu ku hayay 2-1 ayay ku dhamaatay Fulham maxaa yeelay ciyaartii ka horeysay way ku soo tunteen Arsenal ay ku soo baashaaleen hogaankana hadda ayaga ayaa hayo markii hore waa markii labaad horyaalkan inta uu socdo markay hogaanka qabanayaan mar gool badsi ku qabteen markan laakiin waxay ku qabteen dhibic ay ka sareeyaan iyadoo waliba kulum ay u harsan yihiin kooxda Manchester City sidoo kale waxa u harsan kooxaad adag oo ay la ciyaari doonto sidoo kalena waxa kaloo la ciyaaray Newcastle oo ayada aan la maleysanayn inay badi doonto ayaa waxay ku badisay 3-1 Southampton kaalmaha hoose ay u sii dhaadhacaysaa oo ay ku deysay halkaas ayaan kaga tagayaa horyaalka Premier League okay La Liga isagu kulamo saas u sii adag ma jiraan kulamada ilaa haatan la ciyaaray Valencia laga badiyay 2-1 looga badiyay Celta Vigo iyadana 3-1 Villarreal uga badisay Espanyol iyo Getafe hadda ay socotaa 60 daqiiqo ay maraysaa hal gool ay leedahay kooxda la yiraahdo Espanyol Atletico way dhiman tahay wali horyaalka Talyaaniga ayaa Napoli cabsi loo shiday kadib markii bareejo lagu celiyay sidoo kale waxa iyaguna wada ciyaaray Lazio iyo Inter Lazio waa la qabtay 3-1 ayaa looga adkaaday waayahay ciyaarta kale ee Juventusna way dhiman tahay caawa ayaa la ciyaaraya Paris Saint-Germain feeraha laga garaacay ayadana sida aan la filanaynin natiijadaas ayaa ku dhacday Paris Saint-Germain waxa looga badiyay Paris Saint-Germain 3 iyo waxa looga badiyay 1